السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة إسلامية إمانتا وحي إدين سو قد بنيسا درسي لحاد. اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ونبي عليه الصلاة والسلام أما في بعض الروايات لا عيش إلا عيش الآخرة يكون صارتي. أنا الكاتب النبي وقدس في مركزي المسجد النبوي. يعني وحي علماء تاريخ تلماما النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مركز تجي صدح الشيء وقبطي صدح بالشيء وهو الرياء وقبطي وحي هيد كو وحد السيلال إلهي لغو عابده يعني وحد يدك يحرك يا الله سبحانه وتعالى. أول شيء أما مسجد يقضاها النقضة أما كان مدينة النقضة. ثاني شيء وقبطي وحي هيد بالله إذا دوث ولا ليه صحابة دي مهاجرين دي أنصار دي أيو قوة دي ويلاء فيما بين المؤمنين حرير كون حينيه أو حوتيه شيء صدحات وقبطينا بيدادان والوثيقة الدستورية ومسلمين هي غيرهم حديث كان حين دونا وتوعان دونا ومامل كي مدينة هلكو قبل عبي بالنا. إذا حكستو مسلمة وإثبات الإسلامية ومدى الربطة هلكا يقبل عبي كرتا وحويان بالنا هلكا ونبو قبل عبي عليه الصلاة والسلام وإنه قبل عبي مددك يا الله سيد الله يسوق حرية dadka muuminiinta dhexdooda saal isugu xidhayo muuminiinta iyo umada kale xiriirka ay yeelanayaan waxa uu noqon doono muslimiintii kale meesha timi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay kow binaa almujtamac alislaami inuu sameeyo mujtamac muslima in la sameeyo. mujtamaca muslimkaa samayntiisu waxay ka bilaabantay kow inuu dadka ilaahay ku xidho masaajid u sameeyo. markuu مدينة نبي قويمة عليه الصلاة والسلام وحين صوت المبنى مسجد قباء إنه دسي مركو قباء كسو دقي مركو صورنا فين إنه دسي المسجد النبوي لما دا مساجد كو إنه دسي ولما دا مساجد ولما مسجد النبوي مركي اللي دسي النبي هو وحكاك هذا يا رابطة نجاح يوحى يعني قريها يوحى للسيدو أو نبي عليه الصلاة والسلام قاعد تتوحكا قد دسي حادثة دا مساجد وحوين بيت المامسة وحيت المامسة قفك مسلم كاه waxa koowaad loo baahan yahay inuu ihtimaam ka siiyo. waxay tilmaamaysaa masjidku mujtamaca islaamiga waxa uu ka yahay wuxuu ka yahay waa meel ay ilaahay ku caabudaan waa meel ay ku tashadaan waa meel ay tiladooda ku go'aansadaan waa meesha mujtamacu uu ku nasto ee uu xataa ciyaarahooda ku qaban jiray. ciidoo kale masaajidka gudihiisa lagu ciyaari jiray. waxaa dareemaysaa markaa masaajidku inuu u ahaa برطة وين مجتمع مسلم كاه إنه ها مساجد. ولذلك عليه الصلاة والسلام نبي قوته بسم مساجد سواء قري بسم بالقضية ضلواتنا وفلوس قري يموت بسم نبي قمركم مدينين هو قبل عبينه مساجد كما كنا ما يكذب أيه قريان يريان نبي قال بدنا عكرة عسسا الله بالصيد وهل كان يمكن حباشي ساي ونبي قواه سيد وأقول يراي وعاشوا بالصيد ساي يا أبي بكر هل كان يكتيره markii dambe masaajidka la fidinayay buu fidninkii dambe ayuu soo dhex galay. idan nabigu wuxuu ka bilaabay inuu masaajid dhiso ka bilaabay dhismaha masaajid wuxuu ka horeeyay inuu guri dhisto ahmiyad uu lahaa islaamka daraaddeed. masaajideena nimka khaawiga ee boorkuun iyo carruurta ay joogto aan cid badan oo kale ka xaadirin islaamka wuxuu ahaa halka wax walba laga maamulo wax walba ka bilaabmaan ka unkama waana barta loo baahan yahay dadka muslimiinta inay marka horeba xoog saaraan waayo waa halka iyaga ilaahay isku xidha qofka muslimka ayaa alla halkaas ku xidha xataa magaalooyinka markuu nabigu yimaado wuxuu kaga bilaabi jiray inuu masaajidka tago oo ku tukado oo ku sunnaysto kadib uu gurigiisa iyo meelaha u sii kaco. masaajidkaasi buu dadkan ilaahay ku xidha. waa mar labaad ee wuxuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam caqdi almu'aakhaa wuxuu walaaleeyey dadka muslimiinta ah oo ah iyadoo nusuus caami jirto marka horeba sheegaysa inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniintii inay walaala yihiin ayuu haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam markan wuxuu sii sameeyey walaalnimo gaara. culamaai taariikh dhowr goor uu nabigu wax walaaleeyey bay soo sheegaan laakiin taynu inagu u jeedna waa tii ugu muhiimsanayd ee madiine ka dhacday ee bayna alansaari waalmuhaajiriin. ansaar iyo muhaajiriin ayuu walaaleeyey. ansaar iyo muhaajiriin waxa loo walaaleeyey koowaad waxa mujtamac uu dhex yaallo kala durugsanaan dhaqaale
muhaajiriintu meesha yimaadeen iyagaan waxba haysan walidalik ba waxaynu taariikh kooban ka sheegi doonaa niman ahlu sufa la odhan jiro kale ahlu sufa waxay ahaayeen rag degay sufati lmasjid oo ah masaajidku markii hore qibladiisi waxay ujeeday bayt lmaqdis dabeetana waa si qiblada lasoo duway 17 bilood ama 16 bilood ba xaggaa loo tukanayay kadib baa lasoo weeyey qiblada lasoo duwo kacbada layidhi usoo tukada xagga qiblada masaajidku markaa derbi buu kulahaa teesan teedkii buu nabigu yidhi saqaf soo saara saqaf yar markii xaggan looga soo jeesta saqaf la saaray waxa laga dhigay markaa meel dadku uu seexdo dadka aan hoyga madiine ku lahayn gaar ahaan saxaabadaasi soo hijrootay aan waxba haysanin iyo dadka wufuudda nabiga u yimaada calayhi salaatu wasalaam ee wufuuddii islaamika ama diinta soo galaysa ama imanisay ama qofka socotada ee qariibka ee muslimka ee yimaada intuu magaalada kala qabsanayo meeluu ka degayo meeluu dega bay ahaan jirtay على كل حال مدينة waxaa soo degay baan leenahay dad badan oo saxaabo aan waxba haysanin iyo koox hore u deganay oo ah kooxdii ansaarta ahayd ee iyagu magaalada degaanka ku ahaa maadaama uu nabigu rabay calayhi salaatu wasalaam dadkan mujtamaca kan cusub qaab dhaqaale oo uu caawiyana muu haynin wuxuu bilaabay inuu ninba nin la walaaleeyo inuu la walaaleeyo daartii gurigii u lahaa Anas ibn Malik baa la isugu keenay dadka dabeetana muhaajiriintii iyo ansaartii 9 nin baa halkaa lagu walaaleeyay baa la yidhahdaa 45 muhaajiriin iyo 45 ansaar la isku soo daray oo laba loo walaaleeyay walaalnimadani maxay kaga gedisantahay walaalnimadii caamka ahayd ee dadka muslimiinta ay wadaagayeen waa mid kasii gedisan waa walaalnimo dhiigga ka sokaysa wuxuu nabigu rabay calayhi salaatu wasalaam inuu baro mujtamaca islaamiga ahi aasiratu lcaqiida inay tahay waxa kulmisa dadka waxaa muslimka kulmiya inaanu ahayn midab af luqo qabiil meeluu ka dhashay meeluu degan yahay ee waxa kulmiya inuu noqdo mabaadi'da ay rumaysan yihiin waayo inta kale ma dooratid adigu afkaad ku hadlayso waa meeshaad ku dhalato nafkii lagaga hadlayay midabkaad yeelanaysana waa midabkii reerihiinu inta badan lahaayeen ma waxaad dooran karta maaha dadka waxa isku xidhaa inuu noqdo wuxuu qofku doorasho u yeelan karo oo ah diinta iyo caqiidadu raacay islaamku wuxuu nabigu sameeyey markaa mujtamac aan qoomiyadii walaalayno loo dhan baxdeena reer madiina la isku yidhaa reer yasrib baynu maaha waxay isu keenay sabiil maaha waxay isu keenay waa diinu mujtamacii koowaad ama dawladdii koowaad ee islaamiga ahayd waxay ka dhalatay inay noqdaan dad diini ay isu keentay walidaalika carabta agtooda waxa aan ahaan jirtay in qabiilku iyo casabiyad iyo tallaydu inay aad u xoog badnayd dhaqan aad u weyna inay ahayd si dhaqankaasi loo tirtira waxa la yidhi waxa la sameeyey walaalnimo ka sokaysa tii dhalashada oo waa maxay waxa la yidhi iyadaaba la isku dhaxlaa walaalnimadan 45 kan nin iyo 45 ka 9 kan uu nabigu walaalaynay calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd mid dhaxalkana la leeyahay kuwaad dhashay kuma dhaxlaya waxa ku dhaxlaya kan aad walaalaha rasmiga lagaaga dhigay si mujtamaca kani uu isugu xidh ugu dambeeya ilaahay leeyahay maxay wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd aayaadkaasi ku soo aroray suuratu anfaal ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku nasakhay mas'aladii dhaxalka walaalkan inay isdhaxlaan ama mujtamacu intii koowaad uu isku xidhnaa waxa la yidhi iyagaana isdhaxlaya walaalnimadan waxa la rabay in la sameeyo mujtamac cusub oo aan la odhan badhna waa laajiyiin aan la odhan laajiyiin looma bixin islaamka muhaajiriin baa loo bixiyey lama odhan reer maka laajiyiinta cusub ee magaalada soo degtay ama soo galeeti laguma sheegin ee waxa lagu sheegay muhaajiriin waa lafdi ka gedisan alfaada la isticmaalo walidalik saa daraaddeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam labadan kooxood wuu walaalayay walaalnimadanna waxa idinkaga filan axaadiista saxiixun qaar ka mid ah soo qaata waxa idinkaga filan ee walaalnimaduu nabigu ka dhaxaysiiyey calayhi salaatu wasalaam مثلا سعد بن الربيع صحابي اللي ورن ترى أنصار iyo عبد الرحمن بن عوف 10 المبشرين كي كتر سنة مهاجر كاها لبدا nin waxay kamid ahaayeen markii laba dadka la isugu daray labadii la walaalayay xadiiska Bukhari warinaya wuxuu leeyahay labada nin markii la walaalayay ay Sa'd ibn Rabi' wuxuu yeeray عبد الرحمن بن عوف wuxuu ku yiri inni aktharu al-ansar malan عبد الرحمن waxaan ahay nimanka ansaar marka la isku daro ragga ugu xoolo badan labaan ka ahay kamid ah laba haweenana waan qabaa maanta mar haddii layna soo walaaleeyey hal baan yeelay
xoolahayga labaan u qaybinayaa un qayb qaado labada haweeneyna waan kuu geynayaa eego oo taad adigu doorataan kuu furayaa marka ay ciddo baxdo guurso waxaan haystay saasun baynu laba ugu kala dhambalanayna maca dumarka labada waan qaybsanaynaa buui saasaan yeelaya halkaasuu isa soo taagay saxaabigii lala walaalayay saxaabiga kale qoladan muhaajiriintiina ma ahayn niman xoolo doon ah ee xoolakoodiiba way ka yimaadeen way ka soo hijroodeen hantidooday lahaayeenba laakiin waxay ahaayeen niman ilaah iyo rasuulkii usoo hijrooday iyo diintan inay dhisaan u yimid niman rabay inay dawlad islaamiya meeshan ka taagaan oo diintooda qaataan oo islaamnimadooda ilaashadaan u yimid isma odhan wallahi waa fursade dee xoolahan gunta ka jab iyo islaanta lagu siiyey cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu ku yidhi baaraka allahu laka fii ahlika wa maalik walaalow ilaahay xoolahaaga iyo haweenkaagaba ha kuu barakeeyo suuqa tijaaradun aniga igee cabdiraxmaan waxaa nin xirfad wata xirfad tijaareed oo yaqaan nidaamka baaca mushtarka markaa ninkan muu is odhanin wallahi maantaad hanti heshay haddaba adiguna mar haddii lagu jilcay adna intaan dhufso oo kaxayso ee wuxuu yidhi ilaahay walaal waxaago dhan ha kuu barakeeyo ee aniga waxaad igeysaa suuqa baaca mushtarka wuxuu tilmaamay markaasi suuqaqa baaca mushtar yahuud baa iska haysata reer banu qanuqaac suuqoodii buu tilmaamay markaa oo suuqaqa dahabka iyo wax lagu iibiye waaweyn ka mida suuqii reer banu qanuqaac buu yimid maadaama ninkani xirfadan uu yaqaanay markiiba wax u kala iibibiyo dilaanis buu bilaabo waa kaasi duhurkiiba wuxuu soo noqday waxoogaa aqit iyo in samana isagoo sita in subaga iyo in caanaha isagoo dilaalnimadii kusoo helay ayuu soo laabay cabdiraxmaan ibnu cawf halkiibuu ka bilaabay kalahiisi inuu subaxiina ukalaho sayladiisaasiyo wuxuu soo dilaali karay iyo wuxuu soo samaysan karo soo samaysto dhowr cashaba intaan laga soo wareegin ayuu maalintii dambe nebiga kusoo baxay calayhi salaatu wasalaam isagoo waxoogaa soo dhaashaday oo soo barafunsaday cabdiraxmaan ibnu cawf oo aanu dee ka muuqanin raggii kale wixii ka muuqday ayuu markiiba nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaasi mahyam waa yani erey arbeed oo maashaanuk yani nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan oo aan sidiisii ahayn markuu arkay ayuu ku yidhi mahyam maashaanuk waana cabdiraxmaan o maxaa arrinkaagu waa sidee buu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aroos baana waan guursaday cabdiraxmaan wuxuu sheeganayaa markaa isbedelkan ka muuqdaa waa nin aroosa waan guursaday buu yidhi oo gabadh ansaarta kamida buu guursaday nebigu wuxuu ku yidhi kam sukta ilayha imisaad meher u siisa nuwaatun min dahab buu yidhi laftimireed dahabaan bixiyey buu yidhi yani cabdiraxmaan waa soo xoogsaday oo dabeetana gabadh buu guursaday oo meher buu ka bixiyey laftimireed dahaba ayuu meher u bixiyey xadiidka waxaanu soo qaadanun inaan tilmaamno idin tusiyo walaalnimada uu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam uu ka dhaliyey saxaabada dhexdeeda inaanay iyana ku kala hunguri qaadan iyagoo iyagu rabay walaalnimo rasmiya oo ansaar aanay istusiyo waxaa ka ahayn oo ilaahay uga markhaati kacay waayo ilahay ba subxaana watacala qur-aankiisa ku tilmaamaya yuxibuuna man haajara ilayh walaa yajiduuna fi suduurihim xaaj wاladina tabawa'u الdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fi suduurihim xaajata mima uutuu wayuutiruuna cala anfusihim walaw kana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun ilahay ba wuxuu leeyahay kuwii ansaara ee magaalada hore u deganaa ee mu'miniinta hora u ahaa waxay jecel yihiin baa ilaahay yidhi kuwii u soo hijrooday uma arkayaan laajiyin iyo niman dhulka ka qaadaya iyo niman kusoo beel cusub oo la soo degtay waxa uma arkayaan ee yuxibuun baa ilahay yidhi man haajara ilayh walaa yajiduuna fi suduurihim xaajata mima uutuu waxay siiyeen iyo wax aba yaraatay xadsiyo u hayaana ma jirto bale ilaahay wuxuu leeyahy wayuutiruuna cala anfusihim walaw kana bihim khasaasa naftooday ka horumarinayaan xataa iyagoo iyagu baahan yani walaalnimo nafqaybsiya oo uu walaalkii ka doorbidayo intuu isagu carruurtiisa iyo dumarkiisa seexiyo uu siinayo walaalkii oo baahan saas bay yeelayaan buu ilaahay qur-aanka ugu markhaati kacay tusaalehanna waxaa idinkaga filan saxaabadii kalena sida yeeshay muhaajiriintuna inaanay sodhanun waxaa heshaanba urursade iyona halkaas bay taagnaayeen ay rabeen cabdiraxmaan binu cawf uu diidanaa yad wax qaadatay inuu marnaba noqdo alyad almictaa ka wax bixisin buu rabay inuu mar kasta ahaado walidalik buu muddo yar ku noqday madiinadu caynkaa ku yimid ee lahaa suuqay tusa muddo yar dabadeedna taajir buu ka mid ahaa tujaarta ugu waaweyn muslimiinta ka mid a cabdiraxmaan binu cawf inta badan muslimiinta waxay yaqaaneen inuu ahaa nin maalqabeena laakiin waa ninkaasi intuu madiina soo galay isagoo shilan haysanin
in yar haddana maalqabeenka ku noqday ee haddana jihaadka iyo wax walba ku jiray ee aan adduunka mashquulin aakhiradiisa waxayna kaga filan tusaalaha yani halka ay ansaarina ka joogtay waxbixin aba hurayra xadiisku tilmaamaya isna bukhaari ku yaala aba hurayra ayaa wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim xadiisku ku yaala baan rajaynaya قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل أنصارين جاي نبي قوتي بي واحد كويل هذين إيه رسول كيسيو همتدى إلى هايا وحاو بطنا محي تمر قال تمرات فأنا أقول بطنا ما شوى تمر وأنا إلهي رسول كيسيو ماشي يعني عد وحساسي سابك شرين بيه تمر تبنى وقيم قال تمرات كأنه لا أنه أنصاري بلا بين الله تقول صوتري يا الله تقول haloo qaybiyo una ansaar iyo qoloba inuuna ku kala tagnaba sida waayo qofka hadduu kula nooriyona wax siisiisa wax laga yaaba inuu arko in uu qof baahanoo wax la siinayo laakiin haddii mar qura lagu kala tago waxa inta la kala qaybsado la kala tago waa laba qof oo siman bay noqonayaan waxay idhahdeen ansaar iyo muhaajiriin ilaahay rasuulkiisa iyo geetimaadkeegaba kaale u qayb nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qaala laa maya buu nabigu yidhi idin qaybin maayo waxay yidhahdeen markaa walaalnimadii soo dhaafto waxay leeyihin xooloo dhanba noo qaybiba warku waa inkaana ku dhammaaday wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maya idin qaybin maayo xoolihiina haysta waxay yidhahdeen markaa fatakfuuna almu'na wanushrikukum fi tamra muhaajiriintiiba waxay leeyihin haddaba shaqada naga qaabila beertii iyo midhihii iyo wixii annagaa iskale shaqada naga qaabilo nala waraabiyo beertii waraabiyo oo ka shaqeeya wixii ka soo baxana aan qaybsana markaasi saasay aqbaleen qaaluu samicnaa waatacna ansaar markay ansaari ra'yiga soo jeedtay ayay muhaajiriinta yidhahdeen maya taasaanu aqbalayna waxaana siinin aanu xoogsananane beeraha aanu ka shaqayno dabeetana wixii ka soo baxa laakiin xadiis kale abaa hurayra wuxuu ku tilmaamaya haddana ansaar ajarkiiba iyagaa la tegay nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisi iyo nimankani dee ajarkiiba iyagaa qaadanaya oo waa maxay shaqadiina iyagunbaaba soo qabanaya midhiin hadhow waa la wada yeelanaya shaqadii ay yidhaahdeen shaqada idinku qabta hadhow waxa ka soo baxana aan wada yeelano shaqada lafteediina iyagunbaa soo qabsanaya bay leedahay oo waxay nimankii shaqadiina iyaga qabsaday wixii ka soo baxayna waxbay naga siinaya marka ajarkiiba dee iyagaa la tegaya maxaanu samaynaa si kaloo loogu abaalgudana garan mayno wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa maa dacawtumuuhum ajarkii insha allahu yani si ay uga abaalguddaan waa jiraysaa inta aa ammaanaysaan buu nebigu yidhi ee ilaahay u baryaysaan yani sanaaga dhulka la ogolaya kan baa ka mid a sanaa u shukr qofku hadduu iyad kuu galay inaad ugu yaraan aada sheegtid ugu yaraan aad u mahadnaqdid waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiis ku tilmaamayaba man lam yashkur innaasa lam yashkur illah ninka aan dadkaba u mahad celinin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalam allana uma mahad celiyo idan qofku markuu wanaag kuu samaynaya ugu yaraan jazaaka allahu inaad tidhaahdo ugu yaraan inaanad dafirin nimcadii iyo galladii lagu galay inaanad dafirin walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa cidda ugu xusuus badan nimco loo galo ilaa xad xataa kuway gaaladu u gashay ugu qirayay wuxuu ku tilmaamayay ibnu muطcamkii oday ka mida odayadii gaalo waa odaygii aynu shalay sheegaynay markuu bisadaraad markuu taa'if ka soo noqday ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam magangelyada siinayey ee ay quraysh lahayd hadday magangelyo tahay waa aqbalayna hadday diintiisaad gashibtay oad magangeliso waa magangeliy ayuu nebigu maalintii beder markuu godka ku guurayey quraysh boqorrada madaxyadoodii markuu godka ku guurayey baktigoodii iyo dadkoodii kalena la xidxidhay ee maxaabista loo qabsaday ayuu wuxuu lahaa maxaabistan iyo kuwan buu lahaa cadiy ibnu muطcim baa filayna magacii ahaa hadduu noolaan lahaa buu yihi law kallamanii hadduu haaulaa kuwan xunxun hadduu igala hadli lahaa buu nebigu maanta yidhi calayhi salaatu wasalaam cadiy ibnu muطcim intuu yimaado waan wada siin lahaa buu nebigu maadaama abaalku ii galay aan ogaa maalintaasi isagoo gaal ahaa buu abaalkaa u galay gaalnimadiina uu ku dhintay laakiin buu nebigu leeyahay hadduu maanta noolaan lahaa baktigan waan wada siin lahaa oo igala hadli lahaa arrinkooda reer beder waxaa maxbuus usoo qabsaday oo dhan isagaan ku dari lahaa idan ansaarina saas bay yeeshay markii dambena maca shaqadii iyagaa fuliyey markaasuu markay caynkan lahaana nebigu wuxuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam inta ilaahay ugu mahad celinaysaan yani inta iyagana ammaanaysaan ilaahayna subxaanahu watacaala
ubaryaysaan yani waa abaalgudde haddaad qofku intuu abaalku u galo aad weydo waxaad bixiso ama waxaad ugu abaalguddo awalan waxaa fiican inaad mukaafa'a aadna samayso anta muhaajiriintii yidhi mukaafaadii samayn kari weyne maxaanu yeellaana ajarkii way wada qaadanayaane waxa la yidhi u duceeya oo ammaana nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sameeyey mujtamac isku xidhan oo uu yahay waxa walaaleeya islaamnimo masaalixda kaloo dhanna laga tegayo inama almu'minuuna ikhwa sax ay jirto ilahay uu leeya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabu alkufra cala aliimaan ay tahay in diin la-aan looga tegaya aabba iyo hooye iyo waalid oo dhami hadday diinta diidaan waman yatawallahu minkum faulaa'ika minhum ilahay tilmaamayo qul in kana aabaa'ukum waabna'ukum waikhwaanukum waazwaajukum waashiiratukum waamwaalun iqtaraftumuuha watijaaratun takshawna kasaadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وحلنا مجتمع كريم ونقضي مجتمع أصير له حيث مجتمع وحا حريرية وهي الحب في الله إلهي درسي درس جعل أو نبي لي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متكيني ما لغمهلي إلهي ولكن لجعل عضو وحو نفتي سلجعلي أي نقضان مجتمع النبي لي كان الله في حاجة أخيه يعني قفوا انت ولكن باهدي تكجره والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه والنبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي مجتمع ما يعيد النبي آسرده بسكوح الحلي ولو بنيي إن أي سكوح المال مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خيرا بلغ الإسلام كم حاو خير بدن تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف النبي له الإسلام كم حاو خير بدن وحويا إن راشين كان ضرك قودسه مساكين يعيد والبا إن سلام كان إن ضرك قو أخرج قف والبتلات ميرا كرمت ميرا كرمت يعني مجتمع مسلم كسوي سبوع علمه هذا أنت قانون ولقى صلاته أنت ربع سكوح المسا لكن قف مسلم عرب قرمين لبع عشاته كاسور بحر لبع عشاته صلاته بل أنت تحدث سنوك السلام يضرب السيادان ومسلمين حالسا إذا نبغوا عليه عليه الصلاة والسلام تقول السلام على من عرف ومن لم تعرف مجتمع أبوها والنبي لا يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بالسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمنون كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله هي حديث تسرى ربنا لا تقالنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وحاصل نصوصه وحي ولد المامي المجتمع كسيد النبي سوحي عليه الصلاة والسلام ودع كرتا انقص عراضه أما لما حقه في الدحمرته وحنبه كسلين أن تصدح عشك بدل مرغب عركم مغنان كريم لا يحل لمسلم أن يجرى أخاه فوق ثلاث صدح مع الموت بدل أن أدعى الله مغنان كريم بل أعدادك بدل الله مغنان سمحي لما سنة عداد مغنطاي وقصة في دمه ابن نبي هجر المسلم إن أقوله كأي مسلم سنة دفقه وبورطات العدوان سينا نكا سمى ولا هذا الله وحي لما تهدر ليك تداديه ابن نبي عليه الصلاة والسلام يعني ليك خوف مسلمنا دادتي سواح فضلنا وحديث كابي داود إذن أحاديث فضل الصحيح النبي الخصوة وضع أرورتي ودمان توت الماما يد مجتمع كاني سيدو يسقو حدمي وحكا قالك مجتمع كان إيمانك يحب هي خلق على كونه ها واحد السيد وحسيوتك يا آيات قرآن إلهي إليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سمع قاري من سنب إلهي سبحانه وتعالى إلا يا بحثتان مرياني وحا محي جعشه أبو طلحة وصارت كملا مغلي دبتنا النبي بويري وحي إلهي رسول كيسي وإلهي القرآن كوي حكيري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وناجا قاري من سنب إلا يوحى جعشنا بحسان مرياني وحكو شريع إلهي يوحى نوجه على حولائك وبيرتم بيروحا الله إله بيروحا وبير مساجد النبي وكسو جيدي مساجد كبيرت فاسو كسو جيدا وحي عنجل تبارت النبي وقال عليه الصلاة والسلام هي الصحابة يدفق أي بيا لقعبه وبيو معانين جروا ميلو وشو بيشري دبتنا وحي إلهي رسول كسي القرآن بسعود إليه وحي جعشين ربي حسان مو يانا سببا قاري ميسان وحي ربا خير كان لشريعين قالوا حولائك رب بيرتن وين مساجد كورتي سكوت الله نقول علي
beertatan inaha sadaqatun lillahi waa sari ilaahay inay taalo igu qadaaca ya rasuulallah alla uu ku tusiyo oo bihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ahlu raayih baado haddaba u abu talha wuxuu yidhi allah maadadii dadkii ay tolka ahaayeen ayuu u kala qaybiyey beertii weynayd ee uu bixinayay yani waxaad arkaysaa aqniyaadii muslimiinta waxay xoolo haysteen sida ay ugu qaybinayeen dadka muslimiinta ee tirada badan leh ومع كل ذلك وحن لنا يبقى وحاصل نفودا غير نفقيسي اللي سميهي هدنا وحا جريون ببعثة قالت ربضان وأيوة مقالة داد بدن سوري جروني مسلم بدن كسر وحدنا ولي أنا حينين وحكو فلان سيدة دراد ديت بواحة سما اسمي بأن لنا أهل الصفة وكله أهل الصفة وحي من الوحوية وضبطي مهاجرين وبدنا بدنا أصارنا وابلا شجاية ماشي دقي شري لكن وأنا من قلت يبغى تاريخ دير له ويوركوا عن ضحي جهدي يورع يعفضة يدور صنام يعباده ورجل بدنا كم يهدون كاي كطور بدي عباده يا آخره ضد مكة وذا مدينة سو وذا يمد ليه ما يحي ومركب حفظة كل شقيتنا وذا جرنيه وغير ماكينات التجارة وبدن بيعي التجارة دي ندي مالكي لكن هي سيدا عبد الرحمن بن عوف وقال مركبة سوق انتو سوق قالوا واحتمين كرموا يعني انت هو بدن التجارة وزي خاص المال بيوبا انت يعديكو التجارة سوى كل رفرقتين هذا الشيء وإذ كان عدك تيمي الرقل دائما المرية دفون باينتو وهلكا كان بالعبد الله لما خصوص صاروا مركبة كوريكرا لكن المجتمع هذا نسوي جرو ده فرطمانا ما هو ذكرانيا ترجوح يا أبو سين المجتمع هذا لكو شريكرو ضد بدن وان حنتي حيساني nimankaasi waxay deganaan jireen ahlu safa loo oran jiray taajka nabiga dhabarkiisaas waxaa lagu tilmaamaa xawaalay 7 sano iyo inay meelahaasi deganaan jireen waayo exactly rasmiya lagama hayo laakiin dad badan waayo waa meel marka uu fuudi timaado ama dad cusub yimaado dadku uu badanayo marka dadku magaalada uu la yara qabsadee cidi meelowde ay ka baxda halkana uu dadku dee yara yaraanay لكن وعمال ضد فقراء المسلمين يتجنان جرين ويكون مقطعين بدن إن رجع سهايا رجعا حتى عملية في عن هيدا قاقورا مرماقورا رجع حتى على الأمر ده دول الكلام ويجاري جرين مركو هكذا وكنت الصاصر يا أنت تان رجع ولا يكخ جرين جرين مرلان ثلاثة دين يدبد وصام مرمرة ملو ده يتكشف شوغان مويان لكن وحين الجريم من هذا لما كاتينا هاي نمن هذا عبادة بدن هذا الله كعبس بدن dagaalada galoo jihaadda markaa la dhacaan oo miir beelaanba Abu Hurayra waa kiilaa intan gaajo dhaco oo miir beelo ay dadka balmoodi jireen buu inuu jini ugu jiro markaa halka lagu tagay jireen buu yaadika iyo isla jimba ku jira wax uu rafrafan quraan iyo wax lagu akhriyo gaajana la miir beelsan Abu Lay yani waxa garanaysa markaa dadka kan sida ay baahido ragga qaarkood meesha ay ka gaari jireen haddana inay hayaan dad dhowrsoon oo kamida oo ragaale ansara hantidiina haysta ku tilmaamayo kamida ama dad dhowrsoon oo kamida kuwa Ilaahay Quraanka uga marxaati ka celeeyay lil fuqaraa alladina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaqa wama tunfiqu min khayrin fa inna Allaha bihi alim Ilaahay ma soo ramay dadka wax la siinayo wuxuu tilmaamay inay kuwa kamida fuqaraa إلهي درتي روح دمي وأنت دودي حولودي وحولي كي موسو يجرون هكا جوغا ولا يستطيعون ضربا في الأرض أولي كرواي لا يستطيعون ضربا إن يقولك تجاريان وحوكسدان يالي كرواي يحسبهم الجاهل أغنياء حتى لا توفصوني وحيكا قوام با إلهي نين كان حكتو ذو خاسعو غيري قد وحيستون بموضية إلي غيري إنو بالموضية وهي عالم ما يحاجرين دكي مسلمين تايني دورسدان عادنا ما يعانجرين dadka muslimiinta iyagoo gaajo la miir beelayana wax sida u socdaan dhanka kalena caada ma yahaanjirin qof muslimi inuu seexdo isagoo walaalkiyo muslimiin dhankan ku gaajaysay walidalik fa qooxdan ilaahay wuxuu leeyahay yaxsabuhum aljahilu aghniya kuwa waxa istagari bay moodi jireen min at-ta'affuf dowrsanaan daraadood bay ilaahay laakiin bay ilaahay dana leeyahay taarifu bisimaahum calaamadahooda ku garanaysaa bay ilaahay dana leeyahay qofaan waxba haysanin إن كستوي تستروي هذا نوع دريمي شرطان قفنا إنك عصبحي أما ينال وحباي سنة لكن إذا يوحي لا يسألون الناس إلحافا
dadka wax kuma weydiistaan iyo ku celcelinayo loo dhiibayle ee wamaa tunfiquu min khayrin fa ina allaha bihi caliim baa ilaha ilay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam in badan lahaa bilaash looma oran axaadiistana maqashaan طعام الاثنين يكفي ثلاث يعني ورق مركو سيعة الرابع يوم البركة قولي قاله ايال التلمام ورقر اني وحكسي كحيان مرقاساو النبي ولها فاشين كم متكون الله بكف لي كلامه بسبح بكف لي عشومات ما أذكره وأنا ما أذكره وين في رجل سلام تقول في السمايتي أينا بقول لي متكون في فر الله فذكر كيف الله عليك كذا نبي قلت الماضية طعام الواحد يكفي اثنين أما طعام الاثنين يكفي ثلاثة سنة نبي قلت الماضية أحد السنة بالركة كم بيكون صعطة وأنا قوة إلى إليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ورجع وحضع سنين بضلت الماما يوم رجع كان قاعد بيوبضنايين ظروفات كودنا واكلة كدسنايين واختيار كلا كدسنا ونولاين لكن كاسي واحد لا لعموما وحاها مجتمعي غير مدينة او النبي عليه الصلاة والسلام بصي وحينما كانوا بلابي دونا مجتمعات dadka kala sidoo wala dhaqmay ama aan noqoto heshiisyo la galay ama aan noqoto dagaalo la galay oo inta badan siirada dadku waxa ay yaqaaneen dagaaladii nabigu galay ee isaga iyo mujtamaci gaalada kale laakiin runtii daraasad fiican waxa u baahan oo lawla aan ka cabsanayn daaritaankiina u baahan daraasayn la siiyo mujtamaca islaamiga gudihiisu soo dhisana inta lagu ordin oo naadiya boor laga waramin dagaalkii gaalka la galay mujtamaca gaalka la dagaalamay maxaa sameeyay qaabku samaysmay haddaan mujtamaca lahayn gaal cidina iska dhicin kari mayso laakiin gaal waxaa la iska dhicin karaa marka mujtamaca kan uu noqdo kii la sameeyey ee la dhisay siradii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiina u soo hijrooday iyo unkitaabkii uu unkayay nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina mujtamacii ku noolaa waxaynu ka soo warrannay mujtamaca madiina ku noolaa iyo dadku u qaybsanaa oo inadi wuxuu u qaybsamaa carab isugu jirta mushrikiin iyo kuwa islaamayba iyo waxaanu nidhi yahuud carabtuna waxay u kala qaybsanaayeen baynu kuwa muhaajiriin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la socday iyo ansaartii u badnayd aws iyo khasraj ee magaalada sii deganayd madiina duleedadeeda iyo agaarkeeda iyo gudaheeda qaybo ka mida waxaa deganaa baynu leenay dad kale oo gaala ah oo mushrikiin ah waxaynu ka hadlaynay markaasi qaabkii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sameeyey mujtamaciisii koowaad ee waxaynu ku soo jirnay markaa inagoo tilmaamnay siduu nabigu u walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii gaar ahaan ansaartii iyo muhaajiriintii takwiinka mujtamaca madaniga markay ka warramayaan culamadu in badan waxay sheegaan culamadii hore waxay odhan jireen alkitaab aw saxiifa ou nabigu qoray calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan culamada nabe mucaasiriintiina had iyo goor ay ku tilmaamaan iclaanu dastuur almadiina ama almucaahada ama iclaanu dastuur erayo casriyo noocaasi ay adeegsadaan waraaqdatan la tilmaamaya oo waxaa ka warramaysa heshiisyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhex maray saxaabadiisa yani mujtamacoodii siduu isugu habeynayay isugu xilxilayay iyo saxaabada iyo ama muslimiinta iyo yahuud wasiiqadatan inta badan waxaa wax ka qora culamada ka warrama tandiimaadkii idaariga ayuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaynu isku dayi doonaa bal wasiiqada marka hore sugisteeda inaynu ka warranno sida uu soo naqlinay akram dayaa ilcumari xafidahullah waayo wasiiqadu waa wasiiqa runtii aada u muhima laakiin daraasadeeda waxa ka horeeya inay sugitaankeeda la sugo wasiiqada tani waxay ku soo aroortay dhowdu master koo waxaa soo arooriyey maxamed ibnu isxaaq siiradiisa ayuu ku soo arooriyey nasiib daro laakiin wuxuu soo arooriyey iyadaa sanad wadan markaas isaga waxaa ka soo naqliya inta badan ibnu sayid innaas iyo ibnu kasiir labada sheekh waa ka soo naqliyeen imaam albayhaqi raximahullah isna waa soo naqliyey isagoo sanad u yeelay taa ibnu isxaaq can ariiqii sanad u yeelaya laakiin wasiiqadu aanay dhammaystirnayna ku saabsan oo qura tii ansaarta iyo muhaajiriinta dhexdooda uun ku saabsanayd oo aanay la soconin qaybta yuhuudda ku saabsanin ibnu sayid innaas muarikha la yidhahda muslimka wuxuu kala soo arooriyey ibnu khaysam abuu ka soo arooriyey iyadoo sanadkeeda wadata waxaa kaloo soo arooriyey isaguna fi kitaab ilamwaal abu cubay alqasim ibnu salaam ayaa soo arooriyey waxaa kaloo isna soo arooriyey kitaab alamwaal ibnu zanjaway oo min ariiqi imaam zuhari ka soo arooriyey
marka la taxliiliyo ama culamaa alxadiid wasiqadan sanad ahaanteeda ama sixadeeda markay taxliilinayaan sanadadani ma xoog badna dhammaantood marka laisku wada daro ibnu isxaaq iyadaan sanad lahayn buu keenay baynu idhi imaamu albayhaqi wuxuu soo arooriyey sanadka isagoo uu ku jiro nin la yidhaahdo sacd ibnu lmundar oo cinda ibn alxajar yani maqbuuluna ibnu khaysama wuxuu soo arooriyey isagoo sanadka uu ku jiro nin la yidhaha kasiir ibnu cabdallah oo la yidhaha waa nin in badan mawduucaad ka arooriya alqasim ibnu cabdisalaam wuxuu soo arooriyey ibnu salaam sanad munqatica oo imaamu zuhri ku jooga imaamu zuhrina waa min sigari taabiciin oo xadiidkiisa waa waxa lagu tilmaamo mursalka waa mursalka weliba aan xooga badnayn laakiin cumuuman markaynu eegno heshiiska kan ama mucaahadadan waxyaabaha gudaheeda ku jira qaybo ka mid ah iyadoo asaan u dhammayn qaybo ka mida waxaa laga dhex heli karaa saxiixu lbukhaari iyo muslim macnaheedu waxa weyaan qaybo ka mida waa asar waxaa kaloo qaybo ka mida laga kala dhex heli karaa musnadka imaamu axmed ama abi daawuud iyo ibnu maaja iyo tirmidi waxay culamadu yidhahdaan marka inta nusuusta ee ku soo aroortay kuwaasi unba min xaysu tashriic yani sharci lagu binayn karaa la adeegsan karaa waxa kale ma asixin laakiin culamaai taarikhdu akram diyaal cumari uu qabo wuxuu leeyahay taarikh ahaan waa isaga aroorin karnaa litaariikhna markaynu u eegno waa wax la ixtimaali karo un usluubka nusuustani xataa u qorantay buu leeyahay markaynu u fiirsano waa usluub yar oo kookooban oo u eg cahdigii nebiga sidii wax loo qori jiray oo kale ah waxaa kaloo iyana meesha ku taalla in badan oo culamaai taarikh ay sugayaan inay jirto heshiisuu nebigu yuhuud la galay oo qolo kasta marka la caydinaya ama magaalada la isku dilaya waxaad arki doonta iyadoo la leeyahy waxay buriyeen heshiiskii ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam marka heshiiskaasi oo mufasal maaha marka kan laakiin waxaa meesha ka muuqato inuu heshiisay jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu galay marka aan soo koobo wasiiqada tan nimanka ururiya masalan waxay ku tilmaamaan ilaa 47 bandi laakiin bunuuddu isku si uma wada qorree qaybina waxay ku saabsiisan tahay muslimiinta dhexdooda qaybina waxay ku saabsantahay muslimiinta iyo yuhuudda dhexdooda markaan ku horeeyo qaybta muslimiinta dhexdooda ku saabsiisan waan odhan karno inta badan malaa iyadu in badan oo ka midi way asaxday waayo waxaa la helayaa iyadoo nusuus kale ku soo aroortay masalan bandiga labaad ee heshiiska kale wuxuu dhigayaa annahum umma waaxida min duuni innaas dadka muslimiinta ah ee madiine wada degan inay ummad keliya yihiin dadka kale shakadood yani wuxuu sheegayaa muslimka waxaa isku xidha ummad ka dhiga inuu yahay raabitat alcaqiida muslimku qoomiyad iskuma xidho soomaalinimo ama yamaninimo ama wax ka qoomiyad maaha muslimka wax isku xidha qabiille iskuma xidho waxa rasmiga ee ummad ka dhiga ee ummadnimadooda jirsiiya waa caqiidada yani waa mabda ay aaminsan yihin sidaa awgeed iyadoo carabi ay ku soo dhaqantay fikrada qabiil oo qabiilku aad ugu weyn oo waxa la isugu hiiliya uu qabiil yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay inuu mujtamaca ka sugo oo ku sugo diintooda oo uu ka dhigo walaaga rasmiga waxay isugu hiiliyaan hiil iyo dhiig iyo nafba ku wadaagaan inay noqoto caqiido dabeetana waxaa la yidhi ummadda muslimiinta ahi dhammaantood ayaa umma waaxida isku ah min duuni innaas baa layidhi waxaa la rabaa in laga sooco ummadda muslimkaa umamka kale oo dhan inaanay waxba la wadaagin yahuud iyo gaalo iyo dadka kale oo dhan ee muslimku inuu muslim wax la wadaago bale nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine waktigu joogay wuxuu ilaalinayay inay taasi xoog u soo muuqato walidalik bu wuxuu ka reebay xataa inay mujtamaca kale madiine u degan xataa inay weekaadaan nusuus badan baa nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamaya maxay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum cidda cid isu ekaysiisaa buu nebigu yidhi iyagu ka jirtay si uu u kala tilmaamo inaanay isu ekaynin ama axaadiisuu nebigu leeyahy laa tashabbahu bilyahuud waar yahuud ha isu ekaysiinina waayo inta badan dadku dadka ay darka iyo midabka iyo wax la wadaagaan isu ekaysiiyaan marka dambe isku dhaqan iyo waxun baa la wada noqdaa walidalik buu nebigu wuxuu rabay in badan inay ka soomaan waxaynu arkaynaa sidaa awgeed isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam saxaabada u tilmaamaya masalan yuhuudda khilaafa yuhuuddu madaxa ma xinaysata idinku xinaysta yani erada xineeya isagoo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam caashuuraa sooma laakiin yuhuudda caashuuraa soontee taasuucaana ku dara sagaaloodkana ku dara isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam yuhuuddu kabaa kuma tukatay kabaa ku tukada yani caamadeena way la yaabta haddii nin kaba uu ku tukado
laakiin shariica nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa kabaana xataa ku tukada buu nabigu yidhi oo yahuudda khilaafa iyagu kuma tukadaan waxaad moodaa in sunna uu nabigu ka dhigaya calayhi salaatu wasalaam inaan dhaqanka yahuudeed oo dadkii ahlu kitaabka ugu badnaayee la deganay magaalada madiine ah inaanay dhaqankooda qaadanin wax walba markaasuu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ku khilaafa si ummadnimadoodu ay u muuqato masalan bandiga saddexaad ilaa ka 11 ee heshiiska ka mida siduu sheekha kale usoo naqliyey waxa uu heshiiskaasi dhammaantii sheegayaa 3 laga soo bilaabo ilaa iyo 11 waxa uu sheegayaa qabaa'ilkii carbeed ee ansaarta ahaa qaab dhismeedkoodii inuu sii jiro laakiin waxa loo yeelay qaabkay u jirayaan inuu sifooyin ku xidhnaado yani islaamku ma odhan qabaa'ilka hala tirtiro yaa qabiil iyo in magac sheegatiya waxaa ma odhanin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dadku waxay ummad ku yihiin inay islaamnimada tahay ama cashaa'irtan iyo qabaa'ilka kan qabiil weliba sidiisii buu jiraya laakiin bisharti kow laysa mina man dacaa ilaa casabiya buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nagama mid aha sunan abi daawud xadiis ku soo arooray ka dadka ugu yeedha qabiil casabinimadka dadka ugu yeedha laakiin waxaa loogu talagalay qabiilkan isimkiisa jiraya iyo qabaa'ilkan jiraya inay u jiraan التكافل الاجتماعي waxa la yidhaha bulshadu danaheeda gaarka ah in lagu ilaaliyo oo waa maxay dadka muslimiinta caqiida isku wada xidha laakiin isgarabgalkii mujtamacu u baahnaaba waxa la yidhi cashaa'irta ku salaysnaad maxaa ka mid ah مثلا shareecadu waxayna fartay abnaa'i lusra waaxida inay isku leeyihiin xidhiidh gaara oo dhaqaalin gaara isku leeyihiin مثلا guriga inta wada joogta aabbaha iyo hooyada iyo carruurtooda iyo reerka inta kusii dhadhow intaas waxaa la yidhi dee مثلا nafaqaadka isugu waajibay fi shariica biilkii iyo wixii la mida ayaa isugu waajibay waxaa jira afraad ila cashiirada dadka wada wadaaga wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u jirtiyey inay u jiraan maxay tadaamunka qabaliga inuu jiro tadaamunkana waa maxay waa waxaan iminka duwalku inta badan ay qabtaan inshurancekan iyo dawladdu public serviceka tirada badan la ay qabtaan مجتمع الإسلامي أول كهذا يركع وحتى تنقبل ولذلك قبيلك وذاك دفع الديات مثلا عيد كم من هاتي خطأ وحدشه فصد عنتي خطأ وغدف ما هو حقوق صجناية وكليمة عندي ذلك لقد لنا وحي حقوا لي من ديادي لسية ما يشار نسبة لتجي ما يشرع نسبة مجري وحلا تجي يا ديادة وذاك يا محي عشيرة ما قبيلك بوذاك وعاقلة ديادة الأولى يقف كالغمرة مثلا في الشريعة الإسلامية هدي قف قبل رجله قف بوغلنطة لو مثلا كنا الدلاء سؤال الله بعد عليه مقاتل تغف كوغلنطة دي واجبتي دي الأولى يقف كان قف كوغلنطة الغمرة وهل الأولى عشيرة خيركي أما التركي أما قبلكي بالأولى وعاقلة وحلينا وحلنا وعشائرنا نسبح مثلا إلى محابيسة laga qabsado dagaalada iyaga islaamku way wada galeen gaalada maxaabista ay qabato kale inay wada bixiyaan oo soo wada furtaan waxa loogu talagalay inay sameeyaan kuwooda baahan inay wax wada siiyaan bale waxa laga dhigay مثلا xaafada inta ku nool nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kale maadaala jibriil yusini bijar xataa danantu annahu sayuritu iga muddo in nabigu calayhi salaatu wasalaam jibriil inuu jaarka intan xaafada yar inuu ii dardaarmo ilaa aan moodayba inay sadexli doonaan يعني واحد ربع مجتمع كان يسوي حكم لها أفراد القرية الواحدة مثلا أفراد كل الجرتان وكان قلت المامي عليه الصلاة والسلام مجرى تدميره إذا أو تحدودا قف مسلم كاجو وقف قيامه وكاجو إلا إلهي زمدي شو كبري أبناء المدينة الواحدة تلك مقالة ولا تقاحتها وحيلاقي إنقاذ تكافل اجتماعي بسهولة مثلا زكاة نكرر مثلا هالقيتاي زكاة وبحية waxa xaq loogu leeyahay inay magaalada Hargeysa ku baxdo ilaa ay kuwan ay baahdaan mooyaan looma gudbinayo reer berbera ama reer quraan looma gudbinayo dekada madiinada tanaailaaday وهكذا وحدات يرير مجتمع إنسان والنبي يسوع عليه الصلاة والسلام وحل الله تلقى لنا نقطة مجتمع ماشي اسكتري ولذلك باب بنود هشيس كاتيو النبي قلي أو صحابة الله قلي إذا لبت المامة بدل وحد المامة المهاجرون من قريش على رضعته يتعاقلون بينهم وهم يفدون عنيه بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبن العوف على رضعته وبن الحارث على رضعته وبن سعيد على رضعته قبيل بالوسط الماضي ومحل الشيرية كوح ولمن مثلا
diyada iyo maktiga dhiigga sidii ay wada bixin jirtay inay wada bixin doonto kow maxbuuskooda inay soo wada furtaan oo macruuf ay ku soo wada furtaan marka laga bilaabo heshiiskan bandiga 13aad ilaa ka 21aad waxay iyaguna ka warramayaan jaraa'imta mujtamaca ka dhex dhacda mas-uuliyaddeeda ay taqaadi lahayd yani madiine markuu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam booliis ma samaynin oma odhanin booliis iyo ciidan looma samaynin markiiba wax xukuma laakiin waxaa la adeegsado mujtamacu takwiinkiisa qaab dhismeedkii mujtamaca uu dhisnaa saa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in dadka mu'miniinta dhammaantood ina almu'miniina almuttaqiin aydihim calaa kulli man bagaa minhum baa bunuudani sheegaysa mu'miniinta muttaqiinta ilaahay ka cabsanaysa waxay gacantoodu u wada jirtaa ciddii xadgudubta oo ibtagaya tasiicata ulm tasiica ee cadiya ama cidda doonta xaq aanu lahaynoo maaleed oo dulmiya aw isman ama dembiya aw cudwaanan aw fasaadin bayna almu'miniin wa ana aydihim calayhi jamiica walow kaana waladu axadihim wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam heshiiskani waxa uu sheegaya dadka mu'miniintii cidda xadgudubta inay dhanka wada ahaadaan reer madiine oo dhan waxa mu'mine muttaqii ciddii dambiilaha in dhan laga wada noqdo oo qof xaq aanu lahayn doonaya ama wax dulminaya ama dhib geysanaya inay muslimiintu dhan isaga wada raacaan sidaa awgeed baa matalan bandiga 21aad wuxuu nabigu tilmaamay waman ictabata mu'minan qatla can bayina fainahu qawadu qofka qof mu'mina dila ee jinayalaanu dila sidaan wax dambiye geysanin dila yani dil camdiya sameeya qawad baa lagu leeyahay qawadku waa qofka qof dilaya inta dabarka la geliyo ayaa la odhanaya odayada iyada la xaajooda waa dulmi dhiiggaad la wadaagtana haddaad qof dhiig muslim galay oo dembi ku galay intaad dabarka gelisa aad tidhahdo aan ka wada hadalla adee dambiilaha dhiiggana qayb baad leedahay markaas waana kuwuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo man aawaa muxdidan qofka hooya qofka noocaa sameeya ee dhiiggaa kale noocaasi hooya ama u gargaara ilaahay nacdashiisa korkiisa ahaatay carada ilaahay baa ilaa qiyaamaha korkiisa ahaatay ilaahay ka aqbali maayo wuxuu bixiyo wuxuu geysta doonaba nabigu ku tilmaamaya yani laa yajuus marnaba maxaa lagu leeyay waxa xaq loo leeyahay qofka qof dilay hadday dhacdo inta la soo qabto in marka hore la makansiiyo ciddii dilka loo geystay gacanta laga geliyo iyaga markaasi la dooransiiyo laba hal in qofkii qofka loo dilay marka la xaqiijiyo inuu dilo dembigu ku cadiyey in ay u dilayaan iyo inay mag qaadanayaan iyo hadday dana inay cafinayaan taa in iyaga la weydiiyo qabiilka la weydiin maayo taana waa dulmi nimaan ninka laga dilin intu iska cadhaysiy haddaan reer heben lahay inuu yidhaha ayka baaleen waxaa la makansiinayaa qadiyadda tan xaq u leh ciddii laga dilay wariidka ahayd ciddii dhaxalkiisa lahayd ciddii casabada ahayd ee uu qofka kan inankiisii aabihii kaasaa la makansiinaya kaasaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhahdo waan cabsiye inuu yidhahdo yani diyaan qaato inuu yidhahdo waan dilaya xaq buu leeyahy dabeeta nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam matalan bandigaas dadka mu'miniinta ee meesha wada degan qofka qof mu'mina dila ee jinaayalaan ku dila dhan in laga wada noqdo oo la makansiiyo ciddii uu cidda ka dilay oo qofkaasi loo bandhigo qawad loo bandhigo yani in diya laga qaato ama in la dilo ama in la cafiyo in loo bandhigo uma banaana buu markaa nabigu leeyahy qofka mu'minka ee qiray wasiiqadatan ee maalin qiyaamo rumaysan inuu qof waxaa geystay uu soo hooyo ama uu u gargaaro ama uu u hiiliyo hadduu si saa sameeyo buu nabigu ku tilmaamaya taa wasiiqadaas tilmaamayso faina calayhi lacnat allahi waqadabuhu yawma alqiyaama ilaahay nacdashiisa iyo cadhadiisa maalinta qiyaamo korkiisa ahaatay ilaahayna ka aqbali maayo sarfi iyo cadli toona idan wasiiqadu waxay sheegaysaa mu'miniintu siday degaan u wada lahaan lahaayeen ay u suurtoobi lahayd inay wada noolaadaan waxay sheegaysaa inay buulis ka wada yihiin dadka mu'miniinta oo dhima qofka dembiga galay miduu la dhashay iyo mid aanu la dhalanba in lasoo wada qabanayo waxay wasiiqadu sheegaysaa walow kaana waladu axadi kaada dhashayna ha ahaadee inaad dalka kale jirto kaada dhashay xataa adduunya ka dembiga geystay aduu safkiisa ma tidee safka dadka khalaas ilaa iyo inta dembigaasi la faydayo wasiiqadu waxay kaloo sheegaysaa qofka
qofka mu'minka ee mufraxa mufrax waxay ku fasiraan inuu yahay kii deynku uu culaysiyey ama kii asiirkee la xidhay ama ibnu sacad oo kale wuxuu ku tilmaamayaa ninka reerka la noole xisbadaanka la leh ee walaad iyo casabo midna aan kaga mid ahayn nasabkiina kaga mid aha walaagna kagama mid aha laakiin xis buu kula jiraayo kale kuwaasoo dhan in la kaalmeeyo oo isna uu reerka taasi kaga mid noqdo wax laga bixiyo ama caaqilada iyo wixii la wadaagay in la wadaago waxay sheegaysaa masalan bandiga 12aad xil axlaafta nooca kana waxa uu bunuudda masalan bandiga 14aad uu tilmaamaya mu'minka inaan kaafir loo dili karin gaalka iyo mu'minka inaan laysu dili karin gaalna inaan muslim looga hiilin karin wuxuu sheegayaa bandiga 17aad qodobka 17aad masalan dadka mu'miniinta nabadooduna inay nabad kula wadatay dagaalkooduna inuu dagaal kula waday yani nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo jamaacada islaamiga hadday dagaal iclaamiyaan inaad xaq u lahayn inaad tidhahdaan uga heshiis baan la gelay haddii heshiis la iclaamiyana inaad xaq u lahayn inaad tidhahdo maxay dagaal baan gelaya ghazawaadkaasi iyo jihaadkaasi wuxuu nabigu iclaamiyaana inuu dagaal yahay wixii kalena in nabad lagu wada joogay waxa masalan bunuudatan ay sheegayaan gaaladu inay iyagu isku dhan yihiin dadka mu'miniintiina walaaga inay iyagu wadaagaan waxaa bunuudatan ka mida masalan in mushrikiinta aws iyo khasraj wixii shirkiga weli kusii hadhay inaanay xaq u lahayn inay magan geliyaan quraysh yani xarbiba u iclaamsan iyo muslimiinta dhexdooda markaa mushrikiinta tan aws iyo khasraj ka tirsan ee degan magaalada madiini inaanay iyagu xaq u lahayn inay magangeliyo siiyaan nimanka quraysheed ee muslimiinta ay dagaalka ku wada jiraan waxaasoo dhan oo waxyaabo wada sheegaya bunuuddii ama heshiisyadii muslimiinta dhexdooda loo galay heshiiska dhanka yuhuudda isagu wuxuu sheegayaa markaynu soo duuduubno in ay yuhuudina ummad gaarkeeda u jirta ay tahay yahuudda weliba uu sii kala qaadqaadaya yuhuuddu qaar carbeed oo awsiyo khasrajkan iyo kuwa ka tirsan laakiin yahuudoobay baa jira oo markaasi iyaguna ummadda yuhuudda lagu tirinayo waxay sheegayaan markaynu soo duuduubno magaalada madiina in la wada difaaco yahuudda iyo muslimiinta iyo waxaan oo dhami dawla waaxida bay ku wada jiraan taxta qiyaadati moxamed calayhi salaatu wasalaam yani dawladdii koowaad ee madiine ka dhalata islaam baa hogaaminayay laakiin bulshadu cid walba way isugu jirtay bulshada mushrikiinna way ku jirtay yahuudina way ku jirtay magaalada in la deganaayo idan xuquuq waxaa loo siinayay in magaalada difaaceeda dadkoo dham inuu xaq wada leeyahy in dhammaantood la wada difaaco kharashka lagu difaacayo in dhammaantood wax laga wada bixiyo cid waliba diinteeda inay haysato oo markay afraad timaado waa laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay shareecada islaamiga yani dadka diinta laguma qasbo isagoo qofku yahuudiyu ku dhex noolaan kara dawladda muslimka ah isagoo kristan ku dhex noolaan kara dawladda muslimka ah markay caqiidada fardigaa timaado iyo shacairka cabudiga qofku uu samaysanayo waa laa ikraha fi ddiin ama qaanuunka caamkaa markay timaado de waa shareecada sida qaanuunka maanta madaniga xataa reer galbeedka iyo dad kala isticmaalaba oo sida qaanuunka dawladdu ay leedahay waad ku qasbantay nidaamka baamishta nidaamka dhaqaale nidaamka siyaasadeed waxaasoo dhan waa qaanuun caam oo mujtamaca ka dhexeeya diinka doonta haysa waad ku qasbantay in qaanuunkaasi fuliso ama ka shaksiga ee hoos marka loo dhaadhicin diinta iyo waxa qof waliba galbeedka maanta markuu joogo wuxuu xaq u leeyahay maxay diintu doono inuu haysto muslima kristan iyo yahuudiya waxa kan ma aha inay iyaguna markaa ka dhigaan marka la yidhahdo dadka shareecada way ku qasbayen in la yidhahdo maya diintiina dad ku qasbaan maaha yani islaamku shareecadiisu waa qaanuun caam oo dawlad loogu talagalay walidalik kuma xidhna inaad rumaysanta iyo inaanad rumaysnayn ee waa qaanuuni dawla qaanuuni dawlana mujtamaca hoos timaado dhan waa lagu fulinaya ama markay timaado adiyaanta iyo dadku waxay haysanayaana waxaasi waa laa ikraha fi diin bay shareecadu qabtaa qofna diin laguma qasbayo ee qof waliba diintiisu haysanay lama odhan karo markaa meel hadday siyaadada shareecadu yeelato islaam baa dad lagu qasbay lama odhan karo waayo qaanuunka wadcigaaba waa lagugu qasbaya ee waxa weeyaan islaamku waa qaanuunkii dawladda ee sharciga ahaa laakiin dadka ku hoos nooli way noqon karaan dad kristan ama yahuud ama muslimo way noqon karaan laakiin qaanuunka caamka ah ama siyaasiga ama iqtisaadiga ama kan ama waxaasoo dhami waa inuu noqdaa qaanuunka shareecada ay tilmaamayso idan yahuudda waxaa loo tilmaamay inay diintooda hoos ahaaneed haysan karaan macaabidooda iyo waxoodina inay u jirayso
muslimiinta iyo yuhuudiga dhammaantoodna in la wada difaacdo magaalada madiina. waxyaabaha iyaga u gaarkaa yahuudeed waxaa nabiga ilaahay uu dooransiiyey hadday iyagu ula yimaadaan hadduu doonana inuu kala xukumo, haddii kalena inuu yidhahdo diina ku kala xukunta. fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrad canhum wain taarad canhum falan yaduruuka shaya wain xakamta faxkum baynahum bilqist in allaha yuxibu lmuqsitiin aayad baa lagu tilmaamay. waana kuwii waayadii dambe matalan reer banu nadiir iyo reer banu qurayda isqabtay baa la yidhaha. waa laba qabiiloo yuhuud ka mid ah, laakiin way iskala sarraysiin jireen. mujtamac yahuudi waa mujtamac categorial una, waa mujtamac iskala sarraysiya. xataa imikadan israel waa categorial dadka ku dhex nool. maadaama iskala sarraysiinayeen, reer banu nadiir waxay arki jireen inaanu ninkoodu nin reer banu qurayda u dhigmin inuu ka diya bato. yani diyada marta annagana la siinayo ninka de reer banu nadiir haddii la dilo waa nin laandheeraah, waa in diyadu iska badataa. diyada caadigaaba rumaysnaay. markii islaamku uu meesha qabsaday ayay murmeen. dabeetana waxa la yidhi waxay yidhahdeen aan isula tagno islaamka. oo reer banu qurayda yidhi may diyadu wayna dadku sinaadaa oo intaa dad kale laga qaado. dabeetana nabiga isula yimaadeen baa la yidhi alayhi salaatu wasalaam. waa imaamu axmed musnadkiisa sanad xasana qisada kusoo aroorinaya ah sababtii kusoo degtay aayadana wakatabna calayhim fiiha ana nafsa binafs walcayna bilcayn. yani inaan naf reer banu qurayda iyo mid la yidhaahdo reer banu nadiir inaanay kala jirin, annafsu binafsi inay tahay nusuusta sababay kusoo degay. calaa kulli xaal wasiiqadan cumuumkeeda markaynu eegno waxaa ka mid ahayd wasiiqadan baa la yidhaha buluudeeda inuu nebigu xaaraantinimeeyey yadrib siday makaba uu nebi ibraahim u xaaraantinimeeyey. yani inuu xaram ka dhigay bayna labatayha, inaan dhirteeda la goyn karin, xayawaankeeda la dili karin intan magaalada gudaheeda. heshiiska kan waxaa la yidhahdaa wuxuu sheegayey aynu odhan karna ugu horeeya markaasi uu nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi waxa weeyaan in cumuuman kow dadka muslimiinta xidhiidka ilaahay la leeyihin la xoojiyo. kow masaajid buu u dhisay, masjid quba iyo masjid almadani, masjid nabowi. kadibna mujtamaca muslimiinta buu isku xidhay oo alquwa ayuu ka dhexaysiiyey, walaalnimo, muhaajiriin iyo ansaar la walaaleeyey. kadibna mujtamaca muslimiinta buu u dejiyey xeer ay ku dhaqmaan oo shareecada waafaqsan oo ku saabsan umadnimadoodu inay caqiidada ku xidhan tahay, qabaa'ilka iyo waxa kale inay takaaful ijtimaaciga hoose ku xidhan yihiin, ku salaysan yihiin. dadka muslimiinta iyadu waaxida inay yihiin, dagaalkooduna la dagaalooda iyo silmigooduna la silmooda yahay. qofka muslimkii cidduu magangeliyo adnaahum kooda ugu liitaa cidduu magangeliyo kooda ugu sarreeyana waa inuu aqbalaya. yani qof kastoo muslima cidduu magangeliyo siiya waa la aqbalaya. heshiiskaasi wuxuu kaloo ku salaysnaa yuhuudi nabad lagu wada deganaado, inaanay magaalada wax dhibayana ka geysanin. shareecadu islaamiga inay noqoto sulta alculya, wainahuma mahma ikhtalaftum fiihi min shay fainama raddu ila allahi wa ila muxamadin sala allahu alayh waali wasalam ayaa gunuuda ka mid ahaa ba la yidhahda. in wax kastoo la isku qabto ay shareecadu noqoto wax lagu kala xukumayo. siyaasa alculya meeshu inuu islaamku yeesho, cid walibana inay diinteeda haysato, madiinana in la wada difaacdo. kaasi waa qaacidadii caamka ahayd ee ay ku dhisantay mujtamaci ilmadani. saynu u fahamno waxaa aboon inaynu waxoogaa eegno. madiina magaceedii qadiimka ahaa yasrib baa la odhan jiray. waana magaalo qadiim oo taariikh hore oo gabowday leh. waa magaalo maka ka biyo badan bay ahayd. dhinacyadana ay ka xigaan xaraad, nin kastoo bariga iyo galbeedka labada xarre kaga kala yaala. xaratu waaqib iyo xaratu lwabra oo midna bariga ku taalla midna galbeed ku taalla ay xarooyinka ugu waaweyn ahaayeen. xagga waqooyi iyo xagga koonfur galbeedna laba buurood ay ka kala xigaan oo jabal uxud iyo jabal uciir laba buurood la kala yidhaahdo. magaalada gudaheedana waadiyaal badan bay lahayd oo waadi dabhaan, mudayniib, mahzuus, caqiiq. yani waadiyaal tiro badan baa magaalada dhex mari jiray maadaama ay buuraley hareeraha ka xigto dhowr waadi oo engegan oo majmac albuxayraat meel la yidhaahdo, majmac alafyaal buxayra meel yar oo ay isugu wada yimaadaan intooda badani. yasrib degaan ahaan laba kooxood baa deganaa, koox caraba iyo koox yuhuuda. labadan kooxood culamaai taarikh markay ka warramaya waktiyaday soo degeen exactly lama yaqaano, laakiin waxaa degaankooda horreeyey kooxda yuhuudda ah. oo yuhuudda asal ahaan yuhuudda xijaaj degtaa
waxay ka timi baa la yidhahdaa sham oo suuriya iyo yani qaybta sham la yidhahday waqooyiga iyo masar bay ka yimaadeen baa la yidhahdaa gaar ahaan sham qarnigii koowaad iyo labaad ee miilaadiyada markii ay romanska nimankii la odhan jiray qabsadeen dhowr gooro ka dambaysayna way soo hijroodeen baa la yidhaahdaa weliba waxaa lasii tilmaamaa 2 goor oo yuhuuddu fawra ay samayso istiri kacdoon ku samee boqortooyinkii romanskii meesha ka jiray dabeetana 2 goorba fawradoodii waa la damiyey ama waa laga xoog batay 70 miilaadiya markay ahayd miilaadiyadan hadda 2000 markay 70 maraysay iyo 130 ilaa 130 miilaadiyadu markay ahayd 2 goorna hijro xoogaa ka soo hijrootay waana yuhuudda ugu badan ee markaa degtay xijaas dhulka loo yaqaano yahuudda meesha degani waa la qaybqaybiyaa 2 qolo inta badan yuhuud baa loo sugaa inay ahaayeen waa banu nadiir nimanka la yidhaahdo iyo banu qurayda 2 kooxooda la kala yidhaahdo waxaanay degeen ama deganaayeen madiina dhulkii ugu ciidda fiicnaa ee beeralayda ku wanaagsanaa waxaanay ahaayeen dad ka shaqeeya oo kale tijaaradaasi sham iyo dhulkaasi u kala kacda marka reer banu qurayda iyo reer banu nadiir xaratu waaqib ama dhanka bariya magaalada madiina ayay deganaayeen waana madiina dhulkii ugu fiicnaa ee la beerayay beeruhu ku yaalay markaas waxaa kaloo jirta qabiil saddexaad oo yuhuudda ka mid ah oo bani qaynuqaaca la odhan jiray aaraadu iyaga waa isku khilaaftaa ma asliyan bay yuhuud ahaayeen mise carab yuhuudiyowday bay ahaayeen calaa kulli xaal un yuhuud bay ahaayeen ama diin ahaan ha ku galaan ama caynkan waxaa kaloo iska jiray oo masaajidta carabida sheegaan qabaa'il yaryaroo badan oo yuhuuda oo iyana magacyo carabeed watay banu cikrama banu maxmer banu zahura banu shatiiba banu jasham banu bahdal banu cawf banu mucaawiya banu muriid banu qasis banu fuclaba waxaasoo dhan waa qabaa'il yarar oo yuhuud ah laakiin aan ka tirsanayn kuwa waaweyn culamaai taarikhna ay ka warramaan yahuudda marka la isku wada daro ama ha noqdaan dad diin ahaan u galay ama ha noqdaan dad asalkoodu yuhuud ahaaye tiradoodu wax si dhaba uga warramo lama hayo laakiin haddaynu kutuba taarikh dib ugu noqono waktigii nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam matalan inta badan dagaaladii ay gelayeen raggooda hubka qaadi karaya dagaalamaya marka la tilmaamo reer banu qaynuqaac oo kale ilaa 700 oo nin baa lagu tilmaamaa reer banu nadiir oo kale iyana in leeg oo kale ayaa lagu tilmaamaa reer banu quraydo oo kale 700 ilaa 900 inta udhaxaysa lagu tilmaamaya raggoodii hubqaadka ahaa marka la isku wada daro ragga hubqaadka ee yuhuudeed waxay u ekaayeen ilaa 2000 iyo boqolaal yani ilaa 2000 oo nin oo hubqaada dee meesha mar hadday 2000 oo nin oo hubqaad in ka badani joogto dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo xaasaskii iyo waxaa marka la tireena waad garan kartaa tiro waxoogaaya inay gaadhsiisan yihiin yahuudi marka waxay ahaayeen mujtamac saytarada sare ama awoodda sare ee magaalada iyagu gacanta ku haya inkastoo aad odhan karto dhaqankii carabta ee qabiilnimaday wax ka qaateen oo iyaga laftooda dad xilfada ka dhaxeeya oo qabaa'ilka carabeed ee kale meesha degan la kala xilfi wadaaga ay noqdeen muddada badan ay kusoo dhex noolaayeen carabtana waxaad odhan kartaa wax badan bay dhaqamadii carabeed ka qaateen oo matalan ka mid yahay af carabi meesha lagaga wada hadli jiray reer madiina o dham af carabi ku wada hadli jireen waxay kaloo keeneen magaalada madiina dhaqamo aan markaa carabku lahaan jirin oo aafaamta ama qalcaadkan yaryara la dhiste ee samaysana ilaa 59 qalcadood oo yarar ama aafaama magaalada madiina ku yaal baa la yidhaahdaa waa farsamo binaaul aafaam ay ka keeneen sham kala yimaadeen in xaafad iyo in isku xidhan intay meel wada degto deed saroo si wareegsan ay yeelato yani noocaasoo kale u degan waa sham farsamooyinkay ka keeneen yahuudda inta badan carabta iyaga kaga horreeyey dhanka dhaqaalaha iyo iqtisaadka siyaasadda afkaarta waxyaabahaasi laakiin haddana waxaad ohan kartaa kayaankii carbeed ay dhex galeen way ku milmeen iyaga laftooda gaar ahaan raadkii qabiilnimadaha si xooga ayay u qaateen mujtamaca reer madiini wuu ka gedisnaa mujtamaca reer maka mujtamac tijaara un ku salaysan buu ahaa baayamishtar laakiin mujtamaca reer madiini wuxuu ahaa mujtamac ku salaysan inta ugu badan le beeraley iyo farsamo beeraley bay lahaayeen timirta iyo cinabka xoogu beera iyo xubub kalaba
beeraley wax dhaqatay xataa lahaynoo digaag iyo maashiyo kale iyo waxaasi sameeya farsamo yaqaanay lahaayeen sameeya dharka iyo waxaan la tolo iyo waxaasi oo dhan gaar ahaan qalabkan guryaha la dhigay iyo waxaas oo dhan yani mujtamac ka dhaqan gedisan mujtamacii maka ee tijaarada qura ku salaysnaa ayay u ekaayeen waxaanay ahaayeen dad inta ugu badan leh dhaqaalahooda uu gacanta ugu jiro nimankaasi yuhuudeed oo farsamadii ribada ahaana ku dhaqma dhan kale markaynu tilmaamna carab baa la deganayd meesha tan carabta deganayd waa carab reer usdiya yani carabtii yeman ka soo qaxday iyaga waxaa la yidhahdaa taariikhdii dambe ee sadu macrabku uu dumayey ama boqortooyinkii yamaneed markay dumayeen ayaa carabi kala firdhay yeman dadkii deganaan jiray qaxbaaniinta u badnaan jiray carabaha markaa xaggan usoo firdhay ee xijaaj soo degay usdiyiin bay u badnaayeen weliba usdiyiintu meelo badan bay degeeneen gaar ahaan laba qabiil oo waxaan filayaa qolada khusaaciyiinta la yidhahdo maka agaarkeeda deganayd iyo qolada tan aws iyo khasraj oo iyana madiine deganaa dhammaantood qabiilkaasi usdiga la yidhaahdo ayay ahaayeen ee yeman ka soo guuray waxaa la tilmaamaa 207 miilaadiyada ilaa iyo 540 miilaadiyada intii ka dhex lahayd bay qabaylka carbeedna kolba yeman ka soo guureena meesha tan ay soo degeen marka waxaad moodaa ugu yaraan 2 qarni ama 3 qarni inay ka soo horreeyeen yuhuuddu meesha uga soo horreeyeen laakiin qabaylkan carbeed meesha way la soo degeen gaar ahaan aws iyo khasraj waxay kala degeen aws منطقة العوالي bay degeen oo waxay jaar la noqdeen marka reer banu qurayda iyo banu nadiir khasrajiyiintuna magaalada xaggeeda hoose qolana xagga sare ka degtay qolana xagga hoose ayay ka degtay qolada xagga hoose ka deganina reer banu qaynuqaac ayay jaar ahaayeen aws dhulkay degantay baa labada dhul ahaan fiicnaa oo dhulkii beeraha isaga laftiisu xidhiidh la lahaa labadan qabiile carbeedna laftooda gudahooda munaafasa ka dhaxaysay loolan taasi waxay keentay inay yuhuudda la kala noqdaan xilfi wadaag oo qoloba qolo ay xilfi wadaag la noqoto mujtamaca kan carbeed ee meeshan degay waxaynu odhan karnaa si kastaba ha dhacdee way ka tiro bateen mujtamaca madiina reer yuhuudeed way ka tiro badnaayeen waayo inkastoo iyagaba aynan tiro koob rasmiya ka haynin laakiin waxaad ka garan kartaa ciidamadii muslimiinta ay saari jireen ee ansaar oo kale markii fatxu maka ansaar ilaa dee 4,000 oo nin baa meesha marayay marka dee ciidan 4,000 oo nin nimanka soo saari karaya waxaad garanaysaa tiradooda inay in badan ka badnayd qoladii kalena ilaa 2,000 aynu ku tilmaamaynay ciidamadii yuhuudeed ee meesha deganaa marka waxaa muuqata un asbaabtii doontaba ha noqotee yuhuud in lagaga badnaa tira ahaan oo ay ka badnaayeen carabta meesha degan laakiin yahuudi farsamadii ahayd inay khilaafka dhex wado oo isku dirto oo kala kaxayso iyo iyagoo dee ahlu kitaab u ahaayo diin u sheeganayay oo waxyaabaha qaarkood ku dhaamay taasi waxay keensatay inay carabta meesha timi xataa ay xiswadaag la kala yeelato nimankan yahuudeed ee kala degan laakiin haddana carabta markay isdishay yuhuuddu dhexdhexaad inay ka ahaan jirtay inta badan iyagunbay isku eegi jirtay cadaawad aada u xun baana dhex yaalay labadan qabiil gaar ahaan aws iyo khasraj dagaalo badan oo horena way soo galeen laakiin dagaalada hore oo dhan inta badan khasraj baa gacan sarrayn jiray oo aws waa laga yaro xoog badnaa inkastoo dagaalkii ugu dambeeyey aws xoog badatay xarbu bucaad oo dagaalkii ugu dambeeyeyah aws ayaa ku xoog badnayd xarbu bucaadna isagu wuxuu dhacayba nebiga hijradiisii wax yar ka hor iyagoo markaa un dagaalka laga soo hog dhigtay ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam walidalik baa caaisha waxay odhan jirtayba xarbu bucaad wuxuu ahaa dagaal ilaahay uu uga dhigay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam yani loo sii horumariyey inuu meesha ku degaan waayo xarbu bucaad wuxuu keenay kow in odayadii qabaa'ilkan ay dhintaan iyo nimankii madaxya waaweynta ka ahaa iyo raggii diinta ku hor iman lahaay oo dhan inay madhaan aws iyo khasraj dhallinyaradoodii inay soo hadho shabaab ah ansaartii hore ee nebiga baycada la soo gashayna waataynu cabaas ibn cabdilmutalib waa ku lahaa waa maxay raggan aanan garanaynba ee wada dhallinyaradii waa kugu tilmaamayay yani waxaa meesha ka muuqata aws iyo khasraj dadka u xoogane hor socda inay dhallinyaro isaga badnaayeen mala-ul qowmna inay dagaalada tan hore ugu dhinteen saasi daraaddeed bay noqotay meel fudud oo dacwadu si xoogan ay u geli karto weliba dagaalka kani markan uu sii dhammaanaya xarbu bucaad ayay nimankan carbeed bal dib isugu noqnoqdeen oo waxaa la yidhi waraan dib u heshiino
oo bal awsi khasraj dib la isugu keeno oo odayadooda waxay ka nool in ay madax qura wada samaystaan marka waaga waxay isku dayeen inay hal boqortooyo samaystaan oo ninkan la yiraahdo Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul munaafiqiin lagu tilmaami jiray markii dambe Abdullah ibn Ubay ibn Salul nin reer khasraj abuha laakiin qabiilkan yar ee jilibka yar oo ka dhashay dagaalka xarbu baad uu galina wuxuu dhaanu dhaxbaan ka ahay dagaalkaana ma rabo inaan galo dabeetana labadan qabiil markii la heshiisiyay waxa la yiri madaxan wada samaysano oo si khasraj isu keeni karta oo nimankeena arbeed hogaamisa waxa la yiri Abdullah iyo kooxdiisa dagaalkan dhex ka ahaa marka Abdullah baa la rabay in madax laga dhigto waa culimada jira tilmaamayeenba markuu nabigu magaalada Madiina soo galay waxa la talayay baa la yiraahdaa taajkii la saari lahaa Abdullah yani already waa la isku waafaqay laakiin in taaj la saaro boqortooyo tilmaamano magac leh ay noqdaan baa lagu waday saadaraad taajku tolmadiisa sida socotay maadaama taajkii la talayay Abdullah in kursi uu fadhiyay buu ahaa markii uu magaalada Madiina nabigu soo galay alayhi salaatu wasalaam islaamkiina uu faafay ee muhaajiriinta ay yimaadeen wadciga magaaladu uu isbedelay oo nabi maxamed baa hogaamiyay alayhi salaatu wasalaam qiyaada cusub uu yeeshay Abdullah waxa la yiraahdaa awlaadu halka kaga bilaabantay halkan bay in kursigiisii uu maxamed qaatay buu arkay alayhi salaatu wasalaam yani kursi siyaasi loo talayay iyo kursi uu meel ku fadhiisan lahaa ayuu arkay qiyaadadii inuu la wareegay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam taasoo awlaadiisa ku qaaday oo munaafiqnimadan iyo baabkan oo dhan wixii galiyay baabkaas ugu sii badnaa bay yiraahdaan wadciga caynkaasiya oo heshiis markaa carabi dhexdooda ay wado oo dagaaladii ka soo dhex dhacay iyo dhibtan dhex maray ay ka murugooysan yihiin oo ay rabaan inay heshiiyaan ayaa nabigu alayhi salaatu wasalaam soo galay xadiiska Bukhari waa Aisha ay tilmaamtay markaa كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد استرق ملاؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا وحصاق على بيت المالك بعث مالين إلهي نبي هو مريم به نبي محمد ديني في بيت عليه الصلاة والسلام يدو نمن كي عربات مدح دودي كلا شخصي هل كي قريش ملئ أي ولا استعداد انت مال قد الله قوة تشنى يدار النبي وكجري مال شر لقوة قاتل جري يدو نمن كي حد دقال لك توغيو الله أرخي كريم وضيضو مجرد لهشيسيون الله كلا مدح قرصنا يو وان تلفظ عن كده حينين إسلام مركبة جري وقتلت ثرواتهم وجرحوا ثروات كوحلة ثروات القوم dadka inta ka tilmaamana hadiyo goor ama madaxa ama mas'uul ama maqul la tilmaamo leadershipka mujtamaca inta iyadoo mujtamaca kan leadershipki uu ka dhintay bay leedahay badna uu dhaawac yahay ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam soo galay iyadoo waliba islaamkuna Madiina uu ku sifaafayo idan mujtamaca Madiina loo yimi labada kooxood oo carabta tan qayb badan oo kamidi markaas ay islaamtay oo ay diinta soo galeen iyo dadkii soo hijrooday oo saxaabo soo hijrootay oo timi Madiina oo u badan dadaan waxba haysan saxaabada soo hijrootay waxay ahaayeen dad diintoodii ka door biday waxa la ariyo waxa kale oo qof uu daneeyo oo ragay soo hijroodeen iyadoo hantidooda oo dhan lagala haray mesela Suhayb ar-Rumi waxay sheegaan culimada taariikh markuu soo hijroonayay waa la qabtay waxay dhahay Suhayb adigoo lagu wataa maka lagu kaan xoolo lahayn makaad ku dhaqato xoolo ku yeelan saadaradeed adiga ku sii deynina laakiin hal shilin ku raaci maayo xoolaha la tagaysa ma jirto anigu ma deynaysaa buu ku yiri haaba lay dabeetana xoolaha dhan qaata buu yiraahdo sii daayay naftiisa qulu la soo hijrooday waatu nabigu lahaa rabiha Suhayb oo ku tilmaamay xadiiska xaakim soo aroorinayo ee sahihun ala shart muslim ka ku tilmaamay waxa kamid ah inuu soo tilmaamay Abi Salama oo ilmihii laga la haday oo xaaskii laga la haday oo wax walba laga reebo kaligi iska soo hijrooday idan waxay ahaayeen saxaabada badan ee meeshan timirad hantidoodii iyo adduunkoodii iyo waxoodiiba laga la haday laakiin door biday inay ilaahay rasuulkii hijroodaan door biday inay diintooda xoojiyaan hijrada tani markaas si istaba socda bay u socotay kooxo diintooda la soo baxsaday iyo markii dambe nabigu alayhi salaatu wasalaam oo hijrada kaga yeelay waajib markuu isagu soo hijrooday isagii Abi Bakar bay yimaadeen nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yeelay waajib qof kasta oo muslim inuu soo hijroodo
ووحو النبي منعيي إن أنا بريء بو نبي يقول واحد بريء كاهي طبق الصوم مسلم ومشركين تدحد جناده هجرته مركز waxay joogtay markii la furtay Makka ayuu nabigu ilaahay hijrada bacda al-fath maanta dabadeed hijra ma jirto yani dhulka dhan muslim baa haysteen walow halkaaga ilaahay ku caabuday ama wixii ka horeeyay hijradu waxay ahayd dad badan waajib ay ku ahayd oo muslimiinta kamid ah waliba waxa la yiraahdaa ghazwatu khandaq wixii ka horeeyay iyada xasmi bay ahayd waajiba quraan aad u badan inuu soo degay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala hijrada ku amaanay waman yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katira wa sa'a ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين يعني ايات بدن القران الى سبحانه وتعالى هجره وكورمي بل واحد سويت ايات بدن القران لو تلمام يعد هجرون ويدا ان ظالمين ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن وكله كوي ملائكة أفسطي يقول نفسه ذلمنية وملائكة مركة أفسطي سايسير هذا ورمحاكو سكنا إذن أي هذا أقول كان له استضعفين كلهم إيش أتانا له هيستي والله هيستي يلبانه هاي warmiyaan ilaahay dhulkiisu ballaadnayn maxaa hijroon weydeen baa lagu yidhaahdaa kuwaas baa la yidhi jahannamay gelayaan oo kooxun baa laga soo reebay kuwii iyaga mustadcafiinta ah ee dumar iyo carruur iyo ragba wixii la haystay iyaga maxaabiis loo haystay ama hijroon kari waaye mooyaane nin xooganoo intuu gaal iska dhex fadhiya caynkan ku warramay iyagu war ma laha baa la yidhi hijradaasi waxay keentay markaa in dad badan yimaado oo saxaabo badan ay soo hijrooto oo ay yimaadaan magaalada Madiina oo wadci cusub oo abuurmo saddexdan kooxood ayaa markaa magaalada isugu yimid koox walba si kooban baynu u tilmaami doonaa kooxda saxaabada ahi waxay u badnaayeen baynu dadkaasi soo hijrooday ee hanti iyo adduun iyo waxay lahaayeenba ka yimid ansaar oo meesha sii deganay oo si khasaraja yahuud oo dhan ka taala yahuud iyaga warkooda waxaynu ku koobaynaa waxay ahaayeen saddexdaa qabiile waaweyn iyo qabaa'il yaryar waxaanay ahaayeen niman aad u madax adag oo diinta iyagoo garanaya iska indhamaraya waxay ahayn mujtamac colaada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku talagalay oo aan marnaba ku talagelin inay islaamka raacaan kana tashaday markii hore rajaynayay in iyaga nebigu ka soo baxo laakiin markay arkeen nebigu inaanu iyaga ahayn colaadan ay kusii biirtay makrigood iyo halkay taagnaayeen iyagoo og inuu nebi maxamed yahay bay diidanaayeen walidaalika iyagaa tusaale qura soo qaadanaya inugu filan xadiiska bukhaari ku yaala ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi baa layidhi ee uu madiine kusoo degay reer banu najaar ayuu caalimkoodii soo baxay baa layidhi yahuud nin caalim u ahaa oo cabdillaahi ibnu salaam la odhan jiray cabdillaahi ibnu salaam oo caalim yahuudeeda soo baxay nebiguu yimi calayhi salaatu wasalaam su-aaluu weydiiyey markaa uu leeyahay su-aalahanan weydiiyey nebi mooyaane cid kaloo waktigan garanaysaa ma jirto markuu xaqiiqsaday inuu ilaahay rasuulkiisii yahay oo nebiga kutubta ku qoraayo ay sugayeen inuu yahay ayuu wuxuu yidhi hal baan sheegaya haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan iminka kaa hora shahaato oo sidaas warkaygu ugu tago yahuud iyo dadkii magaalada deganaa wax kale iga sheegi doonaan intaan warkayga la maqal ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waxaan rabaa yahuudi waa dad been abuurad badane inaad yahuud u yeedho ogaato kaan ahayd intaan lay ogaanin nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi yahuud buu u yeedhay way u yimaadeen cabdillahi ibnu salaamna guriguu geliyey yahuud wuxuu ku yidhi ka warrama cabdillahi ibnu salaam maxaa u taqaana waxay yidhahdeen aclamuna wabnu aclamina waakhirana wabnu akhyarina وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا كورن baa la yidhi ninkaas waxay yidhaahdeen cabdillahi ibnu salaam waa ninka horta noogu cilmi badan bay yidhahdeen guri cilmina wuu ka soo jeedaa reer wada caalimkayagiina wuu dhalaysna waa caalimkayagii waa mar labaada bay yidhahdeen waa nin fadli badan
ومرتد هذا وأن كان موضوع خير بدن قول خير لنا وكسو جيدا وأضيق يجي بيدا أضيق يجي هنا وطلع سيد كي وياه ابن سيدنا وحاصى أمانة تبدأ والنبي يقول فرأيت من أسلم عبد الله فلا دو عبد الله إسلاما محيي له يعني يهودا إنك يدن كل علم البطنة هدو النبي لماذا يذكره إذنكم محيي له وإلى ذن أعاذه الله من ذلك أعاذه الله من ذلك أعاذه الله من ذلك بكوع العليم إلهي وحاك إلالي إلهي وحاك إلالي إلهي وحاك إلالي يعني وح معقولا ما هو خبرنا وحنا تيجي سايد الله دين عمر يبيني عبد الله بن السلام يعني إنه قاصه السلام نمضا إلهي دين عمر أيكون واقع عبد الله بن السلام يقول كثير صباح مركزه وحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عبد الله بن السلام كي يعيش وده وحيد وأنا شهادني وحان قري إلهي إنه كليه حق لغو عابده محمد نين إلهي رسول كيسية كاسبان قربين عبده انت دقاتين بوحدين شرنا وابن شرنا بيكبل عبده وكي شر نوغو شربنا كي نوغو شربنا أنا ودلج لمن كي حد على هوا سيدنا وابن سيدنا وحي كبل عبده شرنا وابن شرنا يهود دقاكودو كاسبوها ماشي إسلام كتاقنايين نوع أصبوها waxaa markaasi labaad ee nabigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam fikradii jihaadiga ahayd oo intii ay joogeen muslimiintu maka qur-aankii soo degay wuxuu ahaa kufu aydiikum waaqimu salaa yani qur-aanku wuxuu sheegayay sida alla inoo tilmaamayo shacaarka muclankii waktigaa hore wuxuu ahaa gacmihiina haysta oo salaada ooga waxay culamadu yidhahdaan yani asbaabo badan bay ku sababeeyaano mawqifka kan ilaahay ugu talagalay subxaana watacaala inaan dagaa ka dhicin maka gudaheeda waaga hore waayo muslimiintu marka hore mustadcafiin bay ahayn way yaraayeen ta kale dee haddii dagaal la iclaamiyo guri kasta xabadda joogta waa la qaban lahaa una waa tiro aad u yar bay ahaayeen waxa kaloo meesha ku jirtay dadka kan waxaa la barayay inaanay naftooda u xanaaqina diintooda inay u xanaaqaan oo ilaashadaan idan inay dulqaadka in badan bartaan markii dambe ee madiine la yimi ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu u baneeyey inay isdifaacaan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aayaadka kasoo dega ilaahay leeyihi waxaa loo ogolaaday kuwa lala dirirayo yani inay diriraan baa loo ogolaaday walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته